Assalaamu calaykum dhammaan asxaabta ku xidhan kanaalkeena Warwaar. Maanta sheekadeenna waxay ku saabsanaan doontaa laba carruura oo la kala odhan jiray Xusni iyo Xusein. Labadan ciyaalka ah waxa ay tagaan iskuulka iyo suuqa, aabahoodna wuxuu ku nool yahay tuulada. Labadan ciyaalka ahi waxa ay maalin maalmaha ka mid ah ka yimaadeen iskuulka. Sidoo kale waxaa jirtay gabadh cuni jirtay ciyaalka oo iyaduna tuulaha ku noolayd, laakiin tuulaha waxay kaga noolayd xagga kaynta. Maalin maalmaha ka mid ah waxa ay ka leexdeen waddadii, waxayna u leexdeen dhinaca iyo kaynta. Waa kuwa halkaas sii socda, waxayna doonayaan in ay xaafadii tagaan, laakiin waxay doonayaan in ay iska sii ciyaaraan inta ay dhexda sii socdaan. Laakiin ma oga wax ka horreeya, waxayna ku leexan doonaan gabadhii cuni jirtay carruurta. Labadii ciyaalka ahaa waxay si toos ah uga soo leexdeen waddadii ay marayeen, waxayna tageen xaggii kaynta iyaga oo iska sheekaysanaya. Waxay si degdeg ah uga hortimiday gabadhii ciyaalka cuni jirtay. Kadib ciyaalkii markay arkeen way naxeen, wayna ka yaaceen gabadhii. Kadib gabadhii waa ay ka soo daba orotay, waxayna eryanaysaa hadda ciyaalkii yaryaraa. Labadii ciyaalka ahaa oo xoog u ordaya ayaa waxaa dib u soo mareen meeshii ay ka baxeen. Kadib gabadhii waa ay eryanaysaa, waxayna doonaysaa inay qabato oo ay cunto. Kadib gabadhii waxay eryataba carruurtii way ay gaari weyday, wayna daba ordaysaa weli. Waxaa laga yaabaa hadday qabato inay cunto. Gabadhan waxay sida caadiga ah cuntaa ciyaalka habeen iyo maalinba, waana la waayaa. Labadii carruurta ah waxay u yimaadeen aabahood, wuxuuna ku yidhi aabahood, xaggeed ku maqnaydeen, xaggeedna ku soo daasheen? Waxay ku yidhaahdeen, waxaana soo eryatay gabadhii ciyaalka cuni jirtay oo aanu siganay, waana aanu soo yaacnay. Aabahood aad buu u canaantay, wuxuuna ku yidhi, yaa idin yidhi leexda idinka, mana idin odhan waddada tooska ah soo mara. Kadib ciyaalkii waxay ku yidhaahdeen, haa aabbo, maanta waanu khaldanay, laakiin maanta dabeed u noqon mayno. Kadib ciyaalkii uu ku yidhi aabahood, ii tilmaama meesha ay tagtay. Kadib aabahood wuxuu soo qaatay qorigii, wuxuuna eryaday gabadhii ciyaalka cuni jirtay, wuxuuna u sii eryanayaa xaggan iyo meeshii ay ka timid, oo weli waa uu daba cararayaa odaygii, wuxuuna doonayaa in uu dilo. Gabadhan waxay cuntay ciyaalkaasoo ka yimaada iskuulada habeen iyo maalin. Waxay cuntaa carruur, waana la waayaa, lamana garanayo meesha ay gasho. Waxayna ku nooshahay qayb ka mid ah tuulada, weliba xagga dambe ee tuulada ayay gashaa. Hadda odaygii wuxuu eryanayaa oo uu daba cararayaa weli. Waa gabadhii dad cunka ahayd, wuxuuna doonayaa in uu dilo haddii uu qabto. Gabadhii dad cunka ahayd waxay ku cararaysaa gurigeedii, waxayna doonaysaa inay ka baxsato odaygan daba cararaya. Laakiin odaygii wuxuu soo mariyay meelo badan, ilaa iyo waxay isla gaadheen qaybta webiga ee tuulada. Odayga iyo gabadhu labaduba aad ayay isku daba cararayaan. Odaygu wuxuu sitaa qorigii, wuxuuna doonayaa inuu gabadhan dilo. Ciyaal badan ayayna cuntay. Weli gabadhii waa ay ordaysaa oo waxay isku dayaysaa inay baxsato, laakiin odaygii kama hadhin ee waa daba cararayaa. Odaygan oo ah duqa tuulada, labada ciyaalka ahna dhalay, ayaa wuxuu doonayaa inuu dilo gabadhan si ay carruurtu uga nastaan, waayo ciyaal badan ayay hore u cuntay. Weli odaygii waa uu daba cararayaa, kamana hadhin ilaa iyo tuuladii ay iskala baxeen oo ay isla tageen meeshii kolka hore ay ku noolayd. Kadib odaygii waa uu qabtay, wuxuuna ku yidhi fadhiiso. Kadib waa ay fadhiisatay. Odaygii wuxuu doonay inuu madaxa ka toogto, wuxuuna ku yidhi, ciyaal badan ayaad cuntay, waxay leedahay waxba ma cuno, anigu miskiin ayaan ahay. Wuxuu ku yidhi, carruurtayda tiimka soo eryatay soo ma tihid. Kadib gabadhii waa ay aamustay. Kadib odaygii wuxuu isku dayayaa in uu dilo oo uu ku dhufto madaxa, welina waa uu wareysanayaa. Wax yar kadib gabadhii madaxa ayuu ku dhuftay oo qorigii ayuu ku dhuftay, kadibna waa uu dilay. Gabadhii dadka cuni jirtay ama ciyaalka cuni jirtay halkaas ayuu odaygii ku dilay oo waa ay dhimatay gabadhii. Weli waxa uu dul taagan yahay waa meydkeedii, wuxuuna ku soo laabtay gurigiisii. Wuxuu ku yidhi carruurtii, gabadhii
idin cuni jirtay ee idin eryan jirtay, tuuladana dadka badan ka cuntay, waa aan soo dilay, hadda ayaana weliba soo dilay. Wuxuu yidhi, waa ay dhimatay, mana noola hadda, oo waa aan dilay, weliba iyadoo meyda ayaa aan ka imiday. Carruurtii wuxuu u sheegay in ayna meelaha luuqyada ayna marin oo si toosa u tagaan iskuulada, kadibna ay ka yimaadaan. Kadib carruurtii waxay yidhaahdeen aabba waan aqbalnay. Kadib ciyaalkii halkan ayay iska yimaadeen, aabbahoodna halkaas ayuu iska fadhiyaa. Wuxuu ku yidhi carruurta, iska ciyaara. Kolka labadii ciyaalka ah hadda waa ay faraxsan yihiin maadaama la dilay gabadhii dadka cuni jirtay ama laga baqi jiray. Carruurtu waa ay iska faraxsan tahay, mana murugeysna. Dulucda sheekada ayaa ah, ciyaalku haddii ay ka leexdaan waddadii loogu talagalay ama ay ka leexdaan meeshii mare la yidhi, waxay geli karaan halis. Sidaa darteed, mar walba waa in carruurtu ay ka feejignaataa in ay ku dhacdo dabinkan oo kale. Labadii ciyaalka ah way iska ciyaarayaan, waana iska faraxsan yihiin. Aabbahooda ayaa soo kacay, wuxuuna ku yidhi, waxaan idiin sheegayaa inaydan dib ugu noqonin meelaha luuqyada ah ama laalaabyada, markaa waad ka badbaadaysaan wax dadku cunaa. Kadib carruurtii waxay yidhaahdeen haye aabe, waana iska faraxsan yihiin. Wuxuu ku leeyahay, iska ilaaliya, isna jira, mar walba waddada aan mara idin idhaahdo oo keliya ta mara.